celiyo dhammaan culimada iyo marti sharafta ee uu hogaaminayo fadiilatu sheekh maxamuud abu talxa oo ah culimada soomaaliyeed ee waaweyn in badanna aad ku aragteen baraha bulshada. maanta waxaan nasiib u yeelanay booqasho uu ku yimid waddanka Kenya in markaskeena Nibras uu soo booqdo kelimana uu inoo jeediyo ardayda, waalidiinta iyo macallimiinta dhammaan in kelima wacyigelin uu inoo jeediyo. waxaa kale oo aad iyo aad u mahadsan fadiilatu sheekh khaliif cabdow oo ah mudiirka guud ee madrasatu najaax alislaami oo ka mid ah wafdiga sheekha. waxaa kaloo oo nagu soo biiri doonaa doctor maxamed jaamac oo madax ka ah markas tamayuz oo ku yaalo xaafadda islii jujabi. mar wayuu nagu soo biiri doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala. sheekh abu talxa kusoo dhawow xaafadda Bucklands. markas Nibras wuxuu ka kooban yahay laba qaybood. qayb waa taxfiid qur'aan ah oo ilmaha qur-aanka lagu xifdisiiyo, kuwa bilowgana loo bilaabo oo muddo kooban oo 7 bilood lagu farbaro, kadibna ay u gudbaan xifdintii qur'aanka. qaybta labaad waa school primary oo integrated ah. ilmaha iskuulkina ay qaadanayaan mawaadi diiniga ahana ay qaadanayaan. sanadkanna January hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina gaarsiiyo waxaan bilaabi doonaa laga bilaabo bb1 ilaa iyo grade 5 ayaa la furi doonaa oo bilaaban doona. ilmahana waxay ka heli doonaan iskuulkii oo mawaadi diiniga ahaa wato iyo qur-aankii oo waqti aan u diyaarinay oo ay baran doonaan. marka galabkii waalidka waxay ku laabanayaan iyagoo qur-aankiina wata, iskuulkoodina bartay, mar walbana laga warhayo cashirkooda iyo halka uu marayo. marka aad bay farxad inoogu tahay inaan kugu soo dhaweyno xaafadda Bucklands magaalada Nairobi. waxaan aad iyo aad ugu baahannahay wacyigelintaada iyo barnaamijta dacwiga ee aada wado in aad la wadaagto waalidiinta iyo macallimiinta qaabka ilmaha loo tarbiyeeyo, qaabka uu waalidka ooga qayb qaadan karo ilmihiisa inay wax bartaan, iyo farsamooyinka kala duwan ee caalamka aad ku aragtay ee dadka wax lagu baro inaad nala wadaagto ayaan aad iyo aad baahi ugu qabnaa. waxaan soo dhaweynayaa oo abu talxa soo dhaweyn doonaa fadiilatu sheekh khaliif cabdow oo wafdiga sheekha ka mid ah, si uu sheekha u soo dhaweeyo kelimadiisana aan u dhegaysano. intaanan sheekha u gudbin sheekh khaliif waxaan rabaa in aan arday ka mid ah ardayda markaska oo inoo akhriyo aayado qur-aan ah. waxaa weeye cabdilbaari maxamed. aayadaha qur-aanka ayaana ku furan doonaa, wax lagu furtana kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa ugu khayr badan. soo dhawo cabdilbaari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى هبركيو أرضيga wuxuu kamid yahay ardayda markiska ee quraanka xifdinayo إلهي سبحانه وتعالى هبركيو فضيلة الشيخ soo dhawaada dhamaantiin waxaan rabaa hadda microphone-ka inaan ku wareejiyo فضيلة الشيخ خليف عبدي si uu soo dhaweeyo sheekha بإذن الله تبارك وتعالى. marka labaad waxaan mahad u celinaynaa markas An-Nibras iyo maamulkiisa uu ka koob yahay Sheekh Maxamed Kaynan جزاكم الله خيرا فرصة قيمة بدن waxbarasho oo cilmi lagu kala faa'iideysanayo ayaa diyaariseen waad ku mahadsantihiin marka waxaan rabaa wax yar inaan tacliiqiyo markas Nibras magaca qiimo badan weeyaan Nibras waxa weeyaan waa misbaax ama daw marka waxaan rajaynayaa iftiin waxaan rajaynayaa in uu noqdo magaca inuu nasiib ku lahaado musamihiisa meel cilmiga lagu barto oo dariiqi cilmi aftiimiyo inuu markaska noqdo ayaan ilaahay ka rajaynayaa intaan sheekha aan mikrofoonka aan ku wareejin wax yaraan dardaarmaya dardaarankeena waxaa weeyaan marka koowaad waa taqwada ilaahi subxaana wa tacaala taqwada yaa ayuha aladiina aamanuu taqullah qur-aanka in badan baad maqlaysaan yaquul cabdullahi ibn mascuud idaa samicta allah yaquul yaa ayuha aladiina aamanuu farca samcaka ima khayrun yu'mar wa ima sharan yunha marka taqwada waxaa weeyaan waa muhim dadka mu'miniinta inay markaas isku dardaarmaan kulan kasta waa muxuu ahaa wasiyadii ilaahi subxaana wa tacaala dadkii annaga iyo dadkii anaga horreeyay ummadihii u dardaarmay waa taqwadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ittaqi llaha xayثuma kunta nin buu nabiga calayhi salatu wasalaam u dardaarmay ittaqi llaha xayثuma kunta wa atbici sayi'ata alxasana tamxuha wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan intaa yarka wax wacdi oo ka maqan ma laha ittaqi llaha xayثuma kunta meel alla meeshaa joogto ilahay kaga baq waxaa weeye mucaamalataka baynaka wa bayna khaaliqika intaasaa kugu filan ittaqi llaaha xayثuma kunta meel alla meeshaa joogto wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa waxaa weeye mucaamalataka baynaka wa bayna nafsika anta insaan walinsaan khataa curdatun lilkhata mar alla markaad gefto oo gef uu kaa dhaco waxaa weeyaan xasanaad raaci xasanaadka ilahay kaga tiri sayi-aadka هذه معاملتك بينك وبين نفسك وخالق الناس بخلق حسن مخلوقنا كل دقن محوها دقن وناكسن هذه معاملة بينك وبين المخلوق ذاتك ولا هذا مسلمين يا غير مسلم بقى صاد كل دقم لهذا بركة جزاكم الله خيرا انت وحان قدرية ما دام ماشى وحبر شايته وحاد عن أركينا دائر أي بدنيين دذال علمك ودذال ninkii adduunyo rabo ibn cabaas miyuu ahaa min baa wuxuu yidhi man araada addunya facalihi bilcilmi waman araada alaakhirata facalihi bilcilmi
ومن أرادهما معا فعليه بالعلم مركا علمك كددالة جزاكم الله خيرا فرصة آديات أقيم بدن آيات هاستين فرصة كفائديسة هذا يعينا بارك الله فيكم ميكروفونكم وعن كورجينا يا فضيلة الشيخ أبو ضلحة مولانا فضل سولو وأنت مشكور جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد فرحد إذا لم أكو بكرة مركا أنا أركو فرديادا وكلا مدارستا فرديادا لغو قبانا أيوه ميشان قروح ذا بدن إلا دياريي ولكن شيخ محمد كينان جزاه الله خيرا يطاقم كيس لا شقينا يهرق يضمر بله هذه آد بلوغم هذه علينا ياه مدرسة النبراس أما مدرسة النوركا يفتينكا هذه آد بلوغم فرح سليمان تإنان علماء الصوب وقتي أن غيبك أهاضو أنا وفتي وانكحشونا يا وفتي موتو شيخ نقرك وين بانا وطا لكن أنا أردقي سانها مركا وان لصعود أصيغا إن شاء الله تبارك وتعالى intaa kadib waxaan jeclahay kelimadayda inaan cinwaan oga dhigo ummi ayna abi ayna ummi hooya aabbahay awe aabe hooyaday awe hooya aabbahay awe yani ummi ayna abi ayna ummi kelimada waxaan u doortay waaqiceenna iyo qaabkaan u noolahay ayaa cabiraya arrinka laakiin aan qiso yar ku bilaabo qisadaasi muxaadarada waxaan u malaynayaa taqriiban 2000 baan muxaadaradaa dhigay waa waqti adigu 4 sano ka hor ayaan filayaa inay ahayd maxay ku timid famil ba iskhilaafay Soomaaliyeed waxay iga codsadeen inaan kala dhex galo gabadha xoga aad u adkayd oo odayga ka soo istaagtay odaygu qaad buu cunaa waqti nama siiyo noocan weeyay ku dacwoonaysay gabadhu anna waxaan lahaa qurbaad joogtaa carruur baa meesha joogta sabar iyo dulqaad ku dhambe waad ka guulaysan doontaa insha allah u ducee habeen barki intaa soo kacdo waanadaa waxba way qaban weyday gabadhi way i dhegaysan kari weyday xagga carruurtaan ka soo galay waxaan ku idhi carruurtaan ma aragtaa aabba kastood u keento oo asaga ka fiican marna suurtagal maa aabbihii carruurta dhalay inuu oga fiicnaado laga yaabo adi inuu kuu fiicnaado laakiin ayaga ooma fiicnaanaya marna maalkaasay gabadhii khushuucday 3 habeennimaa la marayaa 70 kilomitir ka badan baan mataqaanaa kasoo ayaan ka imaaday qisaan kaaga sheekayn bay igu tidhi qisadaasi maxay ahayd waxay tihi asbuucii la soo dhaafay ilmo yar baan xanaanada geeyey xanaanadii markaa damca inaan ka soo qaado dhulka aan ka hadlayo waa dhul baraf ah barafku sida hadda khaymadan oo kale u cad yahay dhul ma arkaysid oo ciid ma arkaysid oo caleen ma arkaysid barafku wuxuu kuu gaarayaa halkaa lowyaha ah waa laga yaabaa dad qurbaha ka yimid oo mawduuca garanaya meesha inay fadhiyaan waddanka inaan sheega muhiim ma aha qisada ayaa i khusaysee waxay tidhi mar alle markaan wiilkaygii yarka ahaa jaakeedkii dhaxanta aan gacantii midig u geliyey ayaa nin caraba halkaa baarkinka ah gaadhi ka soo degay wiilay isku galaas ahaayeen ayaa orod isi sii daayey buu yidhi wiilkaygii yarka ahaa wiilkii buu sii fiirinayaa waa ku qallalay aniga shaatigaan u gelinhaya waa iloobay odaygiina wuu soo orday hab ayuu siiyey waa uu xumbaaray waa dhunkaday kanna waa dhunkaday kadibna intuu kor ii fiiriyey ayuu yidhi hooyo ani aabbahay awe hooyo ani aabbahay awe ilmuhu aabbuu u baahan yahay ilmuhu hooyuu u baahan yahay ilmuhu naxariis buu u baahan yahay ilmuhu lutfi buu u baahan yahay waa runtii dhacdo aan ka ooyey weye oo markii koobaad aan ahayn sawir cajiiba baa yaan halkaa ka sawiranayaa wuxuu yidhi hooyo horta aniga aabbahay awe xaaladdaas ayada baan muxaadarada marka anugu meel ku qortay inaan muxaadaradaa dhigo oon dhaho ummi ayna abi hooyo awe aabbahay kadibna aabbihiina mar kale la yidhaahdo abi ayna ummi aabba hooyade away bal qisadan sida ay ku timidna ayadana qabsada